gabar muslimada oo la yiraahdo Saada Jamal oo ku nool magaalada Warabe ee ku taala koonfurta Itoobiya ayaa noqotay gabadha kaalinta koowaad ka gashay imtixaanka dugsiga sare fasalka 12aad ee dalka Itoobiya sanadka 2021. Saada oo labadeeda waalidiin macallimiin ka soo jeeda qoys sabool ah ayaa hore u sii qorshaystay inay natiijada ugu sareyso keento 7 maado oo imtixaanku ka koobnaa oo lagu saxayay 700 waxaan ka keenay 650 marka aan fasalka 12aad u gudbay ayaana sii qorshaystay inaan keeno 650 iyo wixii ka koreeya. aad ayaan ugu faraxsanahay xaqiijinteeda ayay tiri Saada. Gabadhayda Saada maadaama ay dalka Itoobiya oo dhan ay kaalinta koowaad ka gashay aad ayaan ugu faraxsanahay, balse dadaalka ay muujisay iyo sida ay u akrinaysay waan ka filayay dhibcaha ay keentay iyo wixii ka sareeya ayay tiri hooyadeed Najiiba Amaan. gabdhaha ila midka ah waxaan dhihi lahaa inay awoodda uu Ilaahay siiyay ka faa'iideystaan caqabad kasta oo soo wajahdana ay ku sii adkaadaan, markaas ay gaari karaan halka ay mustaqbalka ku haminayaan inay gaaraan ayay tiri Saada. Saada Jamal waxay dalbatay jaamacadda dhakhtarnimada lagu barto ee Paulus Millennium University iyada oo jaamacadda ka sugayso aqbalaadda.